xisbiga mucaaridka ah ee wadani ayaa shaaciyay shaqaale dowladeed oo ku jira liiska golaha dhexe ee xisbiga talada dalka haya ee kulmiye xamse dabaare ayaa Somaliland inooga soo diray Sadiq Dhami xogayaha arrimaha bulshada ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu soo bandhigay xubno shaqaalaha oo dowladda ah oo ku jira liiska dhawaan soo baxay ee golaha dhexe ee xisbiga talada dalka haya ee kulmiye lagu shaacinayay inta uu matali doonto golaha dhexe xisbigaasi xogayuhu waxa uu sheegay inaan gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda Somaliland aanu dhex ka ahayn sharciga shaqaalaha dowladda waxa uu diray liis shaqaalihii dowladda ayaa booyinka ka qayb galay shirkii afraad ee shirweynaha xisbiga kulmiye kaasoo aanu sharciga shaqaaluhu oggolay inay ka qayb galaan oo kana mamnuucayo waxaa aad uga xilmaxisiyaan gudoomiyaha hay'adda shaqaaluhu inaanu tallaabo qaadin waxaanu u aragnaa inaanu dhex ka ahayn hay'adda shaqaalaha maadaamuu yahay xubin ka mid ah xisbiga kulmiye golihiisa dhexe farxaan aadan haybe wuxuu ummadda u sheegay inuu sharcigu isaga u ogol yahay laakiin waxaanu xasuusinaynaa farxaan maadaamuu yahay gudoomiyaha hay'adeed xeerka oo ah xeerka kala xiriirka nidaamka xukuumadda iyo hay'adaha madaxa bannaan xeer number 71/2015 wuxuu si cad ugu diidayaa gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha iyo gudoomiyaasha kaleba in aanay siyaasadda ka qaybgeli karin oo aanay ka mid noqon karin qodobka 8 wuxuu leeyahay firqadiisa labaad madaxda hay'adaha wakaaladaha shirkadaha iyo mashaariicda xukuumaddu marka laga reebo xubnaha golaha wasiirada waxaa ka reeban in ay si uun ugu lug yeeshaan siyaasadda وحاكا برلمان باسيلي waxaan ka xunnahay gudoomiyaha hay'adda shaqaaluhu oo aan u aragnaa inaanu dhex ka ahayn shaqadan hayo beenna uu ka sheegayo xafiiska joogo warqadan uu ku sheegayay inuu gudbiyey waqti uu siiyey madaxweynaha waa gudoomiyaha xisbiga kulmiye oo ah warqad outdated oo uu faafiyey 9 bisha halka uu shirku ka dhamaaday 6 bisha isagoo sheegaya warqadan in 6 bisha uu qoray shirka guddigii qabanqaabeynaysa shirka iyo gudoomiyihiisa kulmiyada madaxweynaha Musabixi waxaana u aragnaa inay iska tahay qowda maqashi waxaana uu ku gargaranayo wuxuu gudoomiyaha hay'adda haddana raaciyay in uu haddana ku hambaliyeynayo xisbiga kulmiye inaanay golihii dhexe ee shirkaa ka soo baxay shaqaalada dowladda ku jira waxaan u sheegaynaa farxaan inaanu hayno tiro labaataneeye shaqaale dowladeeda oo liiskii ku jiray rasmiga ahaa ee golaha dhexe oo ku jira golaha dhexe oo ka mid yihiin madaxtooyada shaqaale ka mid ah wasaaradda ciyaaraha wasaaradda howlaha guud hay'adda shaqaalaha ee uu ka yahay gudoomiyaha shaqaale ka mid inay ku jiraan golaha dhexe inay ku jiraan shaqaale ka shaqeeya BFM-ka ee wasaaradda maaliyadda inay ku jiraan shaqaale ka shaqeeya auditka inay ku jiraan shaqaale ka shaqeeya maxkamadda degmada Go'aal intaaba waxaan haynaa magacyadoodii waxaana ku jiraan liisaska rasmiga ah ee uu soo saaray xisbiga kulmiye gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha waxaan loo aragnaa nasiib darro weyn inuu diray hambalyo aanu hubin oo u eegun macna guuday inay xilka ku adkaysaan waxaanay ku habboon tahay mas-uulka xafiis marka ummadda uu dhex u yahay ee ku dhaartay inuu si cadaalada ku adeego inaanu mihladda xafiiska uu joogaan been ka sheegay waanu soo bandhigaynaa shaqaalaha 20-ka ah waxaana u diiday xeer inay ka mid noqdaan qofkuna waa muwaadin xisbiyada qaranka uu geli karaa laakiin laba shaqo ma wada qaban karo laba fursad iskuma heli karo inuu shaqaale dowladeed noqdo cashuur wadaad qaato oo haddana xisbi ka mid noqdo xil ka qaato marka annagoo ka sugayna inuu ka jawaabo tii ergooyinka baa waxaana soo baxday liiskii golaha dhexe ee haddana 20 shaqaale ku jiraan gudoomiyaha hay'adduna wuxuu ummadii haddana la hortaagan yahay isagu leeyahay shaqaale kuma jiraan annagoo liiskii 20 qof baan ahay
marka gudoomiyaha miyaan halka ka muuqanaynin in aan dhex ka ahayn shaqadan la hayo oo aan dhex u ahayn shaqaalaha uu maamulo oo shaqaalaha kulmiyana aanay qabanaynin ishiisu shaqaalaha mucaaradka ama si u ah ama aragti qorana wiiga u weeriyay imanka toddobaadkan ku jiro inaan baa lagu weeriyaa shaxmarina loo sheegay in uu xafadka haddana shaqaalihii dowladda uu farxaan maamulay waa kuwan laysii golaha dhexe xisbiga kulmiye ku jira xamse dabaare RTN TV hargeysa.